kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan barnaamijkeena maanta ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aanu la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo isagu macallin ka ah jaamacadda magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dhawaan ayuu Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu booqday magaalada Muqdisho haatan ayuu safarkiisii uu ka soo noqday isagoo marar badan booqasho ku tagay magaalada Muqdisho oo aan ahayn markii ugu horeysay ee uu tago markii ugu horeysa soo dhaw Cabdi Ismaaciil علي أهلا وسهلا والله. سؤال شو ورسن عبد الرحمن كويدي حوي محاد هذه شهر أتكتكتا مقالة مقدشة محاد وين صعد على المقدشة كنت هورت ده waxa weyn Muqdisho waa magaalo madaxdeeni weeye waana wadan Soomaaliyeed waaye oo malyan iyo jarjar Soomaali ku nooshahay waana meesha la inaga dilayo aynu ka bogsan karnaa waaye markaas waxaan u tagaa waxa kamid ah qaar xagga tacliinta ku saabsan oo aan jaamacad Muqdisho University leeyahay ayaan xiriir la leeyahay ardaydeeda iyo macallimiinteeda qoloyin caafimaad ka shaqeeya magaalada xiriir baan leenahay asxaab fara badan oo shakhsiyan isku naqaano oo isku wanaagsannahay way joogaan iyo inaan soo ogaado waxa magaalo madaxdeena ay ku sugan tahay ayaa guud ahaan safarada dartooda aan u tago meesha intaan ku weydiin bal Muqdisho iyo isbedelkeeda waxaad ku soo aragtay guud ahaan wadanka Soomaaliya waxa jira meelo badan oo maadaama tahay macallim adigu dhinaca tacliinta u badan oo aad xiriir la yeelan karaysid haddii aan ku weydiiyo maxaad Cabdi Ismaaciil Samatar u taweeyay Hargeysa Djibouti Garowe Beledweyne maxaa jawaabteeda aan oranahay horta Djibouti waan tagaa Djibouti in fact waxaan tagay December baan tagay Djibouti jaamacadana waan tagaa taasi waa kow jaamacadda Hargeysa mar hore ayaan tagay markii han tagi kari jiray waqooyi intaan siyaasaddu si kale isku rogin Garowe in fact imika waxa qorshaysan inaan jaamacadda 10 ka bixiyo anigu halkan jooga ayaa kamid ah arday dhulka kala joogtana wax waanu tarnaa hadaan Soomaalidan jooga waqooyiga Mareykanka marka waxa weeyaan meeshii han tagi kara ayaan tagi waana qof quraanahay 100 qof ma ihi marka haddii han Hargeysa siyaasaddu hayna sidan ahayn oo la tagi kari lahaa ana jeclaan lahaa caruurta Hargeysa jaamacadda ku jirtay inaan tago wax soo dhigo kuwa camuud waan u tagi jiray laakiin waxay noqotay quraankii ninkii quraanka 30 jisboon aqaana ee la yidhi ka akhrisanaya Garowana waan igan hawsha wadna qolada jaamacadda Baydhabo dhisasa xiriir baan leenahay kaalmo ayaan siiyay midalan laakiin hadiya jeer waxaan ku yiraahdaa dhageysta jaamacad xaafad ma noqon karto jaamacad iyo xaafad waa kale sidoo qaranku qabiilo noqon karin jaamacad waayo waa meesha maskaxda dadka maskaxdooda lagu furayo xaafad ma gelin kartid marka khaanadahaas aan ku yiraahdaa marka cidii khaanadaha wada ha ii yeedina ayaan ku yiraahdaa Muqdisho kale marka tagaysid waxay soo martay marxalad kala duwan oo dhinaca siyaasadda nabadgelyada dhaqaalaha horumarka waxyaalahaas oo dhan nabadgelyada oo kale sidee baad u hubisaa inay tahay xilligii ugu habboonaa ee aad booqan kar lahayd Muqdisho iyo inaad booqan kareen sidee baad taa ku hubisaa xamar maan tagin muddo 10 sanadood markii qaranku dumay markii ugu horeysay intay waxay 2001 dii bahayd January labadeedii marka tilmaam baan ku siin markii qolooyin baan marti u ahaa garoonka kilometer konton ayay diyaaradda ka soo degi jireen Muqdisho muddo guriga may fadhiisan jireen markaas ardayad baa ila socota markaas markii diyaaradda fadhiisatay ayaa nin baa soo galay markaas uu yiri Cabdi Ismaaciil aawe Cabdi Ismaaciil waan iska aamusay qawleysatadii ayaan moodiyay waxaan maanta kuugu daran tahay ilaa qoladii martida aan ahayn baa soo dirtay markaas uu iska tago qoladii uu yiri ninkii ma joogo haddana wuu soo noqday Cabdi Ismaaciil Samatar Cabdi Ismaaciil markaas aan ku yiri war bal hanisa sheego ilaah baa waan is sheegay markaas uu yiri wariya ma ina Jarmal baa tahay markaas aan ku yiri ninka aabahay naanaystiisa garanaya waa qof waqooyi ka yimid markaas aan ku yiri haay aad sideed ku ogaatay in aabahay Jarmal loo oran jiray markaas uu yiri islaanta waris daraawiish leeyahay ee reer Gabiley baan walaalana markaas aan ku islaanta hilibleeyda hay caynkaas ahayd markaas aan ku war qawleysatan ku moodayay marka anigoo sheekada soo gaabinay waxa weeyaan anu qofan isleeyahay Soomaaliya oo isleeyahay dambi waxbaad yeeshay dambi baad ka gashay ma jirto laakiin dad baa oranaya hebel waxa soo sameeyay waa lagu dhufan karaa marka hadiya jeer ilaahay anigoo cuskanaya oo iimaankiisa iyo islaamnimo cuskanaya dad fara badan oo Soomaaliya oo gobol kasta jooga ayaanu macaarifnahay saaxiib ahaanu nahay dadkaas aan ku dagaa dadkaas warka isiiya dabeedna dadkaas aan la socdaa marka meesha tago waatay marka loo eego xilliyadii hore tagi jirtay Muqdisho iyo xilligan iminka oo aad ka timid week ama laba week hor
maxaa farqo aad la kulantay aad aragtay horta markii 2001 han tegay the warlordska ayaa deeblowda hayay markaasi oo de baarqabka ahaa magaalada marka inkastoon idaacadaha ka hadlay Horn Africa iyo meelo shabeeliyahan ka hadlay haddana waxa weeyaan meeshaas aad ka baxaysaa hotelka tagaysaa meeshaas ka baxaysaa guriga tagaysaa imika waa nafis way ka nafisan tahay inkastoo bambaana meel la dhigi karo had kugu dhici kara ama qof kale loo jeegay lagu dili karo dadku way socdaan ma arkaysid isbaarooyinkii oo la jiray ma arkaysid guryihii oo dib loo dhisay aad arkaysaa inkastoo boqolkiiba 85 ilaa 90 iyo jarjar hay magaaladii dhulka taalo oo wixii warlordska ka baxsaday waxa dumiyay Ethiopiaanka iyo waxa dumiyay iyo ayaa dumiyay wixii Ethiopiaanka ka fakaday waxa dumiyay shabaab iyo Amisom baa dumisay shabaab baa wax yar soo tuuraya Amisom baa balaayo ku furasa marka mesela haddaan tilmaamku siiyo meeshii loo oran jiray Fiat hotelkii Fiat loo oran jiray ayaa iyadoo markaas faraha laga qaado dib loo dhisay ayaa haddana Amisom oo shabaab eryanaysa ay ku furtay balaayo dhulka la dhigay maalintan dhaweeyay ku noqday iyadoo dib loo dhisayo ayaanu tagay marka waxaan arkay dad Soomaaliyeed oo rajo qaba oo himila wada oo doonaya inay wax noqdaan wadankooda wax noqdaan nadaafadii ka shaqeynaya ardaydii wax baraya marka himilo weyn ayaan ku soo arkay magaalada waa rajo wanaagsan oo horumar leh runtii muqdisho kale marka dhex maraysid ma socod horta mise baawur baa sareedo labadaba iyo socod ay lugta socodka kale markaan eegno meelaad soo karaysid alla halkan inaad muqdisho joogtid ayaad hubtaa oo aad garan kartid calaamadaheedii ma jirtaa oo tilmaami kartid waxa weeye horta meesha liida loo oran jiray waad garan inkastoo meeshii maqaaxidii shaahay laga cabi jiray hay dhulka taalooyna jirin xeebta marka joogtid waad garan inaad xamar joogtid baarlamaankii hore aan tagay oo darbi qurixi uu ka dhisan yahay astaantiisi waa maskaxda ku haya waad arkaysaa shabeelle ma garanaysid hotelkii loo oran jiray dhulku yaala jubba waxaad arkaysaa qolfoofkiisi baa yaala Oroobo qolfoofkiisi baa yaala arbaca rukun waad tagaysaa masaajidkii ku yaala Cabdilcasiis oo badla dumiyay oo imka dib loo dhisay arkaysaa marka astaama waad arkaysaa laakiinse waad yaxyaxaysaa markaad ogtahay waxay meeshu ahaan jirtay iyo waxay indhahaagu markaa qabanayaan walaa Cabdi Ismaaciil soo cuntay babaay mise ku soo dabaalatay xeebta liido xeebta lugahan geliyay kuma dabaalan babaay waan soo cunay kalluun fara badan baan soo cunay oo fresh oo maalin kastaba lagu samaynayo waxaad arkaysaa waxa weeyaan Soomaali inay baahi disho uma baahna waxaan ruu sheegi walaal waxa weeyaan kalluunka wadankeena laga xado min sayla ilaa raas Kamboni laga xado laga xaday 20kii sanadood ugu dambeeyay ama Korean xadeen ama Shiina xaday ama Spanish xaday ama Talyaani xaday ama Hindi xaday waxa lagu qadarayaa 9 bilyan oo dollar ugu yaraantii $9 billion haddii inta Soomaali loo deyn lahaa Soomaali way dhisi lahayd baahina sidii macluushii waagi dhaweyd may dhici kartee qiyaastaas markaa mal awaal baa mis waxa weeyaan daraasad baan sameynay la dhaho budcad badeedka laga sheekeynayo budcad badeedkan iyagu waxay noo sheegaan kuwa Soomaalida wax qafaasha afar baan u qaybinay budcad badeedka asalkeegu siyaasad yahay oo political piracy hanu bixinay budcad badeedka ku xigtay budcad badeedka khayraadka dhuufsata budcad badeedka istaafaca iyo budcad badeedka madax furashada kuwa laga hadlaa waa kuwa madax furashada inta markab qabtaan ilaahan haddaan 3 milyan la nasiin ma sii deeyay laakiin kuwa isdifaaciyay waxa arrimaha kuwan lagama hadlo kuwa khayraadka ilaalinaya kuwa khayraadka guranaya waxa weeyaan kuwa 9 bilyan ee dollar inaga xaday waay Soomaad garan kuwa istaafacaya waa dadkii kalluumaysiga lahaa iyo dadkii ka haray wixii loo oran jiray Somali Coast Guard ciidamadii bad ilaalinta ayaa ku kacay markay arkeen waxaan joogaa magaalada Boosaaso 2005 inta tsunami ku dhicin markaas waxaad arkaysaa habeenkii hadaad xeebta tagtid maraakiibtii oo wax 3 ama 5 mayl aan ka fogeyn ka qaraabanaysa oo bilo jooga halkaas oo xaabsanaysa baabiinaysa wixii kalluunkan cunto u ahaan jiray baabiinaysa waxa cid ka hadli karaysa ma jirto marka daraasadda caynkaas ayaa keentay in la qadaro waxa la inaga xaday inay noqonayso inta walaal waaya piracy aan ka gudbino dhinaca muqdisho aan markale ku noqonay siyaasadda Soomaaliya maxaa ku iftiimay maxaa ku hilaacay marka loo eego siyaasadihii kala duwanaa iyo marxaladihii kala gedisnaa ee wadanku soo maray dawladda ku meel gaarka imka haatan ka tirsan Soomaaliya waxa muuqata in xogaa yididiila xogaa iftiim oo ku saabsan dhinaca horumarka nabadgelyada al-shabaab oo meesha laga saaray ama la caabiyay ama la riixay wax kasta aan ilaahnay wax muddo bilicdi magaalada oo soo noqonaysa dawladda Turkiga oo dawladda ay ka mid tahay oo iyaguna
sheegay inay diyaar u yihiin inay dib u dhis sameeyaan dowladda kumeel gaarka marka dhinac kale laga eego waxaa kasii dhimaanaya xilligii 3 bilood ayaa u harsan maxaad is leedahay rajada Soomaaliya oo Muqdisho ku xidhanay way xilligan waa la oran karaa labada qolooyinka iminka dowladda meesha jooga rajo kuma xidhna waxa weeyaan 3 sannadood oo fursad laxaad leh ah ayaa la tirtiray oon laga faa'iideysan kow rajada ugu weyn waxa weeyaan ididiilada dadka ididiilada iyo karti haddii la isku xidho markaasaynu sidii leebka haynu u ganana haddii laakiinse ididiilada karti iyo hufnaan iyo iimaan lagu xidhi waayo waxa weeyaan sidaasaynu u dhacanaa qoortan ka jabanaa marka waxa weeyaan maalan haddaan ka qaado dowladda Turkiga oo kale magaalada markan tegay dad fara badan baan arkay safaaradooda waan tegay meelayo kale waan maray waxaad arkaysaa waxa weeyaan Turkigu laba arrimood in loo fahmo weeye waxa weeyaan dowlad xarfadeedu aad u sarreyso islaamnimadeeduna aad u weyn tahay laakiinse wadan bay mathalan Soomaali ma mathalan taa hal ogaado marka waxa weeyaan dan gaarana way leeyihiin dan islaamnimana way wadaan marka in Soomaalida madaxdeedu taa hay la fahamto ayay hayd lamana fahmin waxyaa barnaamijyada wadaan cid allaaliya cid hay la shaqeeyaan ayay maantada aan joognahay laayihiin waa ninkii yidhi 30 jisba waan aqaanaa yaa yidhi yaa ka akhrisanaya qolooyinka dowladdu maba ogaba danta gaari leeyihiin maxaa oranay danta gaari waxa weeyaan wadankani waxa weeyaan wadan adduunyada la tartamaya waaye dhaqaaluu rabaa baayac mushtar buu rabaa maalan waxa yimid wadanka kumbaniyaha yimid Turkiya oo doonaya inay dib wax u dhisaan laakiin iyaguna lacag helaan marka waxa weeyaan sidee la isugu xidhaa danta gaar ay leeyihiin ee aad inay iyaguna wax helaan ummaduna hay wax noqoto dadkii xarfada lahaa ee farsamada lahaa ee kalsoonida ummadeed haystay ee waxa sameyn lahaa ma joogan meesha dowladda ma ku jiraan mise waa maya ninka ugu roon waa ninka tarsan la ilaahay run loo sheego ee maamulka magaalada meeyarka ka ah isagana farsamo ka hooseysa oo dad khubaro ka hooseysa waxaan la dhisa ma joogan walaal waatay Muqdisho oo kale dowladda Turkiga waxa kamid ah waxyaalihii ay siiyeen arrimo ku saabsan dhinaca gargaar bini'aadnimo ay bixiyeen fara badan waxay bixiyeen dhinaca tacliinta koorsooyin ama scholarship ay siiyeen arday fara badan oo Soomaaliya oo dhowr boqol oo arday gaaraysa sidee si cadaalad iyo sinaan ah wadankii maanta Soomaaliya muddo 20 sano burbursanaa Muqdisho oo kale marka la joogo la doonayo 200 oo arday in la siiyo scholarship maadaama dhinaca waxbarashada adigu aad ka socotid ma oran kartaa si cadaalad ah gobolada Soomaaliya loo eego ardayda xaq u leh inay tagaan oo soo bartaan waxa weeyaan ceebteen ilaahay ha asturo waxa weeye qolooyinka dowlad sheeganaya ayaa doonaya caruurtoodii inay caruurta kala hormariyaan waa dambigii tii hore qalbi waaye markaan waxaan leeyahay maalan Allahu naxariistay ninkii Ibrahim Cadow la oran jiray professor Cadow waxyaabaha ugu sameeyay ee ugu wanaagsanaa markii meesha tacliinta loo dhiibay waxay ahayd in maanta markhaatigeegii la hayo in ummadda si xaq ugu qaybiyo wax Ibrahim waa tii inaga qaatay wixii ka dambeeyay waxa weeye waxa la iga soo warramayaa Turki gudaheega oo la keenay arday aan iskuulkii u bilownayn oo hay xigaan qof hay dowladda ku jira marka waxaan sameeyaa oran lahaa Soomaaliduna inay u qayliso oo ay u dadaasho oo diidaan inay yiraahdaan waxa weeyaan waa in la sameeyaa meel dad farsamadan yaqaana iimaan leh caruurtooda aan doonayn inay iskuul uga baahan yihiin la keeno oo ummadda markaa ugu qaybiyo maaha qolo maaha tacliin qolo ma laha diintuna qolo ma laha waxa la yiri wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu litaxaakumu mu oran ilaahay litacaarafu in la isku garto tirsinta waa marka inta la sameeyo imtixaanada kuwaas ay sameeyaan waan lahaan jirnay مثلا هذا كسر قدرتي مركي Somali Airlines لبلابي امتحان عين كاسة isagoo Cabdirasaq Xaaji Xuseen markaa wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta ayaa la sameeyay xaq baa lagu helay ragii maalinta joogay ee galay ee pilots ka noqday way nool yihiin maanta waan kari karnaa laakiin se dawladda ku meel gaarkii awoodeedii iyo iimaankeegii midnaba ma laha in amuraha sameeyaan walaal waxaan ku weydiinayaa su'aal si marka loo eego Cabdi Ismaaciil Samatar fudud si marka loo eego miisaankeeda leh waxa tahay macallin jaamacadda gobolka Minnesota wax ka dhiga muddo dheerna hawshaasi gacanta ku hayay waxaad qayb ka qaadataa dhinaca waxbarashada ee Soomaaliya sida hadda aad sheegaysan inaad lecture badan aad dibadda u tagtid wadanka Soomaaliya gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan ka Cabdi Ismaaciil ahaan oo macallin baa tahay Cabdi Ismaaciil oo mise siyaasi baa tahay horta waxa weeyaan laf dhabarkaygu waa macallin waaye dhiigayguna waa macallin waaye
waayo waxaan qabaa waxa weeyaan haddii fursaddii anigu han helay anigoo wiil yar oo Soomaaliya oo baadiyo ku dhashay oo riyo jiri jiray markuu 4 jar iyo 5 jir ahaa fursaddan helay dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimo wada ayaa keenay tii ayaa i siisay inaan wax noqdo haba yaraatee waxaan rabaa markaa waxa weeye qof arday kasta wiil iyo gabar kasta oo Soomaaliyeed wax kale hadaynaan siin qolooyinka da'deedii iyo da'daadii inaan uga tagno wixii la ina siiyay wax leeg si adduunyada hay u barbar galaan oo la tartamaan oo yiraahdaan dheeriya dhuxusha ka madoobiya aabahay baan arkaa inay yiraahdaan iyo hooyaday baan arkaa inay yiraahdaan markaa macalinimadu waa waxa weeyaan dhiigaygana way ku jirtaa dhuuxaygana way ku jirtaa talabaad ee siyaasadda had ka soo hadashay Soomaalidu waxay isku khaldaaneen inay kala garanayn oo macalinimadu waxay ku baraysaa waxa weeye qofka wadanigu inuu xaq u leeyahay inuu ku doodo wixii wadankiisa u wanaagsan af Ingiriiska waxa lagu yiraahdaa civic duty waa mas'uuliyadii wadaniga midna waxa weeyaan qof siyaasi oo jaga doonaya anuu wali meel hanjaga ka doontay lama hayo ama damac siyaasadeed ugu jira damac siyaasadeed wadani baan hadaan doono waan la soo bixi karaa Soomaad garan waxaan rabaa kuwa doonaya inay magacayga ku hadlaan si xaqa sinaana islaamnimo ah oo Soomaalinimo ah inay u hadlaan oo u dhaqmaana hadday u dhaqmi waayaan macalinimadu waxay fursad ii siinaysaa intaan cilmi baaris ku sameeyo inaan ummadda u soo bandhigo waxa ku jaban kuwan si aynu u raadino dad wanaagsan oo inoo qalma markaa wadani baan ahay ee siyaasi professionally ma ayanahi walaal laakiin iminka waxaan ku jiraa xisbi la dhaho heel qaran haddii markaa ta xisbi gelistaas hadday kaa dhigaso siyaasi dadna qoorta iyo sudcalayo waan ogolahay waayahay heel qaran waa dhugeli doonaa saal baan kaa weydiin doonaa heel qaran laakiin weli waxa maskaxdayda ka guuxaysa mar dhow wax dhawaajisay in magaalooyinka Hargeysa iyo Boorame aad moodid in xoogaa cabasho ay jirto dhinaca siyaasadda ku salaysanta kulli waxaad ka dhawaajisay mar dhaweyto quraan baratay laakiin yaa ka dhageysan doona ayaa Boorame lagu oran doona ka Cabdi Ismaaciil ahaan maxaa idin kala haysta ama idin kala dhex yaala dhinaca siyaasadda marka laga eego adiga iyo Hargeysa iyo Boorame oo kale horta dee maamulku Hargeysa yaala Boorame ma yaala waatay aniguna reer Gabilaan ahay reer Boorame may way Soomaad garan magaaladaas aabahay baa iskuulka dhisay iyo masaajidka Gabiley Soomaad garan aabiyo hooyan halkaas ay ku aasan yihiin walaashay halkaas ay joogtaa Boorame gurina kuma lihi aabana igagama aasno hooyana igagama aasno laakiin waa dad Soomaaliyeed oo abtirsiin wadaagno ceebna ma aha taasi Hargeysa xurgufta aniga reer Hargeysana ma aha dadka caadiga ah ee waa qolooyinka maamulka haystay doonaya in wadanku kala go'o waxana soo kala dhex galay waxa weeyaan anigu wadankan gobolka man ka tirsanahay markaas waxa weeye xaq baan u leeyahay inaan anigoo madax banaan oon lay odhan sidan yeel iyo sidaa yeel maanta da'baan joogaa caruur may in qof kale uu yidhaaho ma ogoshahay waxa iyo ma ogolid ma qaadan karo xaq baan leh marka waxaan kala horgal waxa weeyaan anigu waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed ee jamhuuriyaddii ku jirta inay walaalo yihiin inay islaamnimo iyo Soomaalinimo wadaagaan inay dhaqan wadaagaan inay dan gaara wadaagaan dantaasina inaynu af Soomaali ku wada hadalno adduunyada inakoo Soomaaliyahan la tartanno cidda doonaysa markaa inay kala googoyso iyadoo isticmaalasa siyaasadii isticmaalku dhigay wadanka aynu ka soo gudubnay aynu ka galnay hanu ka yeelanay inaku aynu goosanay inaynu isku nimaadno iyadoo cidnayna khasbayn anu tiibaan wadaaye iyaka ayaa isbedelay walaal waatay adu markaa Soomaaliland oo kale daliil gooni ah u jeedisa maamulkeeda mise waxaad tiraahdaa haday soo hadasha inay haboon tahay sidii London baa lagu soo qaatay shirki ugu dambeeyay lagu soo qaatay 23 bishan ka soo gudbinay February kaasi oo qodobada meesha laga hadlay ay kamid ahayd in Soomaaliya iyo danteeda ay garto wada hadlaan oo kale si guud oo noocaas oo kale miyaad u hadashaa mise si gaar ah ayaad u dhalishaa maamulka Soomaaliland mid waxa weeyaan walaal waa mid shakhsi weeyaan way الله يرحمه محمد إبراهيم عقال مركو مدحوينها شيئا يهرجيسين يحيي أيا قلا وراقو كيسي مركز يكوي هذا وحي ورما ينن فدي ماش مركز يكوي هذا مستر بريزيدنت نينكني وسنة كستبوي مادة قبيلة وحنا وقرح مركز وين لقبتها محمد إبراهيم عقال سياسي بوها بسلاضي رأيي هذا سكوت دين لكن إنه سياسي كوضع حريفسا وحنا ودناها ومرق متعاقتوا واي wuxuu ku yiri ninku qori muusita maya rasaas muusoo ridaya maya tay ninkuna ordo qordo buu ku yiri wuxuu qoro ka jawaabo way
marka aniga cigaal sidaa iskumaanaan diidneen markaasi waay dooda waxa weeyaan anigu haddaan reer waqooyi yahay ma ogolo inuu waddanku kala go'o waay isaga qudhiisa guntiisu ma ogolo inuu kala go'o markaa dhaliishan usoo jeedinaya waa taas ta kalena usoo jeedinayaan walaalhay ku boorinaya waxa weeyaan gobolkani waa nabad waayo ya xurguf hoosoo fool xume ha iska jirto laakiinse waa nabad dadku waxay goosteen inaan rasaas laysku ridin waay maxaa inoo diiday inakoo soomaali ah oy meeshiini nabad tahay inaan soomaali oo dhan u talino oonu iyaka hagno hadday iyaku walaaliheen xumaadeen maxaa inoo diiday relation ku wadaa waa taas wey waaya dhinaca puntland oo kale iyana aanu eegno sidaad la socotidba waxaa dhowaan maamulka puntland ay sheegeen inay heleen ceel shidaal ama ceelal shidaal oo weliba si dhaqsaa loo qodi doono shirkado ka yimaada australia ama kendiyaanka oo ay heshiis la galeen ayaa iyaguna ballan qaaday inay shidaal fara badan oo xaddi aada u ballaaran leh ay soo saari doonaan xilligan cabdi ismaaciil oo lagu jiro dhibaatada ee 20kii sano u dambeysay soomaaliya ay iska burburka ahay dowlad dhexna aanay jirin marka gaas xaddigaa leh qiimahaa leh oo kale la soo saaro maxaad odhan kartaa muxuu keeni karaa nabad iyo colaad waxa weeye haddii si miyire loo fikiro mise haddii si doqonnimo leh loo fikiro waa tahay anugu waxaan ka soo shaqeeyey jaamacadda ku taalla waddanka botswana waddankaasina waxa weeyaan adduunyada wadamada ugu dheeman badan waayo markaasaa markii dheemankii ugu horreeyey la helay waddanka madaxweyne waxaa ka ahaa nin gobolka waqooyi bari ka yimiday oo la odhan jiray sareed sakhama ayaa madaxweyne ka ah oo dimuqraadnimada lagu doortay waa tahay qolooyinkii xaafadiisa ahayd ayaa ugu yimiday gurigii madaxtooyada waxay dhahan Mr. President gobolkeennii baa laga helay macdan waa in inteeda badan waa inaan inaku qaadanaa waay wuu ka maskax wanaagsanaaday wuxuu ku yidhi war waxaan ummaddaale dhulka hoosta ayay waxaana ku jiraan maaha wax dowlad yaala waxaana ilaahay ummadoo dhan buu siiyey bini aadam oo dhan ayuu siiyey ummaddan soomaalida gaar ahaan markaa wuxuu yidhi maxaad garanaysaan bilee berri toole mid ka weyn laga hel gobol kale ma idinaan doonin markaa taana inaad wax ku yeelataan markaa wuxuu yidhi hayla imanina waxaasi maalin dabadeed nasiib wanaag 8 sannadood dabadeed in ka yarba ayaa tii mid ka weyn gobol kale laga helay arrinta way dhammaatay markaa waddankoo dhan baa wadan marka anugu reer bariga waxaan ku odhan lahaa walaalayaalow horta haddii waxaan la sheegayaa dhab yihiin ilaahay khayr ka dhigo ilaahayna dhab soomaaliha uga dhigo laakiinse waxa weeyaan haddii sidaa reer botswanahan yeelnana soomaali oo dhan baa sharaf yeelan doona gobolka puntland iminka lagu sheegayaana sharafta ugu weyn buu qaadan doonaa hadday garato maamulka iyo dadka meesha jooga maskaxdii sare takhaamo kale hadday yeeshaan oo yidhaahaan waxaan walaalahay oo dhammaanu la wadaagnaa waayo bilee berri toole hargeysa laga hel ama boosaaso laga ama boorame laga hel bilee kismaayo laga hel marka waxa weeyaan waa abaal soomaali haddaan nahay abaal walaalkaa iyo walaashaa u dhiga waayo waaya professor cabdi ismaaciil samatar siyaasadda guud ee soomaaliya tan intii ay dowladda dhex burburtay soomaaliya waxaa lagu jiray dowlado ku meel gaadha 3 sannadood 4 sannadood 5 sannadood waxaanay dowlad walba ka dhamaanaysay iyadoon wax badan qaban amaba ummadda soomaaliyeed sidii la rabay markaasi aanay gacan u qaban amaba aanay waddankii dhisin oo cadaaladda iyo sinaanta iyo wixii luma oo dhan aan dib ugu socon xilligan marka lagu jiro ma isleedahay way dhowdahay xilligii laga bixi lahaa ku meel gaadh mise waxaa isleedahay weli soomaali ma bisla waqtigeena ma dhowaa waxa weeye sida ku meel gaadh looga baxaya waxa weeye walaacalow dadka dowladaha lagu sheegayo ama tii cabdiqaasin ha noqoto ama tii ka dambaysa ha noqoto ama tan ha joogto ha noqotee waxa weeyaan waxaa la odhanaya madax baa tiina ordoo tagoo shaqeeya nin sheeganaya mar ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka amuuraha idaacadaha iyo informationka wararkana ayaa maalin yimid markaasaan ku yidhi imse qof baa kuu shaqeeya aniga darawalkaan nahay buu yidhi markaa waa ruwaayad waxaas waaye waxa weeyaan haddii soomaali wax lala doonayo tan baana kutusaysa inaan wax laynala doonayn waxayd in la dhaho waar intaynaan jagooyin qaybin horta arkaantii dowladnimo institutionski waa in la dhisaa marka la dhiso markaasaa loo raadinayaa ciddii fadhiisan lahayd ee hawlgelin lahayd waxaasi adigoon qalin iyo waraaqba haysan ayaa lagu odhanayaa wasiirka caynkaasaa tahay markaa maqaaxyahaad ka sheekaynaysaa markaa kaasi wasiir kuuma noqonayo talaata baystein ayaa la noqonaya markaan waxaan qabaa arrintan london lagu qabtay waxay odhanaysaa ma odhanayso dowlad rasmiya ma odhanayso waxay tidhahaa waxna af ingiriiska lagu yidhaahdo caretaker government caretaker governmentna waa transitionalkiioo dhinac kale lagugu dhigay waayo markaa maqaalad baanu qoran haddaanu heel qaran nahay waxaanu nidhi sida tan looga faa'iidaysan karaa waxa weeyaan 2 ilaa 3 sannadood in wasiiriyo waxaan la iska iloobo ya in 100 qof la soo xolo oo u eekaado camal baarlamaan oo iyaku ilaaliyo dadka Soomaaliyeed guud ilaaliyo inaan wax Soomaaliyeed ay leedahay la qaadan
muddadaana laga shaqeeyo sidii 10 wasaaradood ama 11 wasaaradood oo weyn loo dhisi lahaa oo hadhow tii tacliinta ah oo markay dowladdan la bedelayay dad la soo doortay yimaadeen wixii oo dhisan hay iman lahaayeen markaa hawlgeli lahaayeen haddii taa la yeeli waayo sidaa unbaa loo rafan doonaa walaal xisbigan heel qaran oo kale aad ka tirsan tahay sidaan ognahay dad soomaalida fara badan ayaa xiliyadan lagu jira 20 sano oo dambeysay aan idhaano haddii xisbi la furo iyo haddii wax kale la furaba marka waxay isha ku dhuftaan cabdi ismaaciilow xisbigaasi talo reer ma furtay kuwana ma ayaanu su-aashaasi reer ma furtay xisbigaasi laakiin heel qaran ma qabiil buu matalayaa iyo matalayaa qaran buu matalayaa waatay qowmiyad buu matalayaa islaamnimuu matalayaa soomaalinimuu matalayaa waxa weeye wax kalaba ha laygu sheegee maalan tilmaam baan ku siini waay markii la joogay doofaare ama imbagati ayaa warlordski iyo wixii baa ku heshiin waayey inay charter samaystaan distoor sameeyaan anaa la ii yimiday qolooyinka UN EU baa ii yimiday waxay dhahaan min fadlag nacaawiyo bal waxaan qolada gooni-goonaha usoo qorteen isku geeyo dadna samayso Soomaaliya isku keen bal wax ummadda u qalma ka soo saar wixii gaaladu uma haysan markaa Soomaali wax garanayso waxaan hagaajin kartaa inay jirto markii hore waxay dhahaan annaka dadku keenayna ma shaqaysta baan ku yiri markaan inima raacay anaa dooranaya baan ku yiri dadka aan wada shaqaynano 7 qof oo Soomaaliya oo la yaqaan ayaan keenay waanu shaqaynay wixii baan soo saarnay distoor maanta la tartamaya weeyaan kan aan inoo sheegayaan ay doonayaan in 33 gobol iyo wax ka badan qoorta la inoo soo waa si lagu gowraco waayo wax kasta ha lagu tilmaamay ka laguma tilmaamin Cabdi Samatar intuu xaafadiisii jeebka soo gashaday ayuu distoorkii dabada ka soo geliyay laguma tilmaamin meel arday Soomaaliyeed hanugu tago reer la iigu sheegana ma jirto waxaan ku tilmaamay waxa weeyaan markii Hargeysa aanu hanidi war waxaan goositaanku nama qabto ayaa la yiri ma taqaana ina Samatar ha reerkii aabihii buu u xaqlinaya markaas iyagoo taa lagu heesayo ayaa waxa yimid ina riyaala meeshii yimid markaas la yiri ha imku muxaafid noqon doona ina riyaala London yimid isagoo cidna iyo qolooyin kale la socda oo doonaya in la aqoonsado aqoon Ingiriis baanu nahay bay leeyihiin umaan aaba yeelina sidii kuwii hore aan uga hadlay ayaan uga hadlay marka ani u malayn maayo qof oranaya ina Samatar qabiilo ayaa dabada kaga jirta de xamar umaan tagan hadaan qabiilo raadinayo marka waxa weeyaan dadka nagu jira waxa weeyaan dad camalkooga iyo ficilkooga iyo taariikhdoodu hay muujinayso inay islaamnimo iyo Soomaalinimo ku mitidayaan ka weeyaan dadka wata walaal Professor Cabdi Ismaaciil Samatar hadalkaagan macaan turxaanta aan lahayn qabiilka ka baxsan tala wanaaga arrimahaasi oo dhan laga dareemayo ma yahay mid calooshaada ku jira oo daacad ka ah mise waa mabda siyaasadeed oo laga yaabo birto in la maqlo Cabdi Ismaaciil oo hadalkan maanta daawadayaashu ay ku daawanayaan ama ka dhageysanayaan isbedel keeni karo oo isagoo jiha kale hadana haysta la arki karo waa su'aal wanaagsan walaal waxa weeyaan macallinimadu waa mukashif way ku kashifaysaa waxa weeyaan waxaad qortay baa kugu soo bixi doona haddii Soomaali ay soo hesho waxaan qoray oo qabiilo amaanaya qoortaan soo dhiganaya haddii la arko qofan ka eexday oo uga eexday qof kale kan baa'ixiga ama abtigay ama adeerkay ha ahaade kan baa'ixiga haddii la soo sheego qoortaan dhiganaya maanta waxaan joogaa caruurtayda iyo reerkaygu way isku filan yihiin shaqo uma baahni waxa weeyaan wixii aniga ummadaasi ay tartay inaan waxdan wax kale kari waayo wax la mid ah caruurta Soomaaliyeed han uga tago weeyaan marka waxa ballana oo in ku xisaabtamana Soomaalida in dhageysanayay intan anigu heel qaran ku jiro inaanan ka aamusin in Soomaalinimada iyo Islaamnimada ay ka leexato taas ayaa inoo ballana walaalayaal su'aasha ugu dambaysan ku weydiin Cabdi Ismaaciil Samatar waxa weeyaan maadaama aad ka timid magaalada Muqdisho dhowr toddobaad ka hor dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya rajada dalkooda ay ka qabaan gaar ahaan dadka qurbaha jooga inta badan maxaad u jeedin lahayd maxaad oran lahayd dadkaas waxa weeye himilo weyn ayaa socota dadka magaalada Muqdisho ku arkay waxa weeyaan dad diiday in laga adkaado Soomaalinimadooda ogol taanu reer Muqdisho meehi reerka halka degan meehi marka wax maxay igeynaya weeye marka waxaan arkayaa walaalahay oo rajo qaba marka qolooyinka dibadda jooga ee fadhi ku dirirka ah waxaan oran lahaa iska dhaaf reerkad u shirasaan iyo kuwa durmaanka u tumasaan nin hebel baa imanayo xisbi wato reer hebel iska dhaaf oo waxa weeyaan qof walowba hadaad shaqaysatid oo hay ka go'do $10 qofkaas aanu sameeyno sanduuq
lagu caawinayo dadka tabaaloobay ee Soomaalida ah halkaa ha lagu wada rido maalin walba waxaynu u geenaynaa magaalo wadanka meesha ugu liidata ayaan u gurmanana haddaan Soomaali nahay waxa imanaysa markaasi kuwa siyaasiyiinta ee doonaya inayna kala xadaan inay meesha ka baxaan Soomaalinimo iyo Islaamnimo quman ayaa markaas soo kacaysa marka qolinka dibadda jooga waxa weeyaan hadaalina ummadda xamar joogta iyo wadanka gudihiisa joogta way ina dhaaftay Islaamnimo iyo Soomaalinimo ku shaqeynayaan haynu qaybteena ka qaadano walaalayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waraysigaasi aad naga qayb qaadatay aad baa mahadsantahay Allah yسلمك وهاجاك دعوة ديال أنت هسي أيام كوسو كوبيا ورئيسي مانتا عن ليشي بروفيسور عبد إسماعيل سمتر أو يسوي دوان كيمد مقالة مقدشو تاني كلنا كنا ضبيه دعوة ديال وعلى عبد الحرارة ودمانتي بايدي كيتجي سدا إيو نبت قريب